waa tahay haatan dabashana qiimaha leh waxaan rabaa inaan tafaasiisha ugu dheeraadsan waqtigan dambe ee wararka imaanaya aan idin siiyo wadanka Iran iyo dagaalka hadirta soconaya noocu yahay inaad faham guud ka heshaan xogaha ugu dambeeya inaad ogaataan macluumaadka iyo sidoo kale aad ogaataan arrintu dhinacay u socoto iyo waxyaalaha la filayo inta badan dabashana qiimaha leh Iran wali waxay wajahaysaa weerarka Israa'iil haddaba ay ku hayso Iran waa la filayay waana idin sheegay weerarka markii aan saaka ama xalay saq barkii markaan wararka bilownay almost 24 hours ku dhow hadirta ku sii shaqeyso in weerarkan uusan noqon doonin ama dagaalkan uusan noqon doonin hal maalin dadkii inala jaan qaaday ama wararkeena si toos ah ugu xidhnaa haday barnaamijkeena dhacdooyinka tahay haday warfadhi media good tahay haday barnaamijkeena wareynta iyo haday barteena Facebook tahay inta intayna socotay way ogaayeen waxaan rabaa marka in Israa'iil ay weerarka hadirta ay hayso iyo deegaanada ay qaadaso runtii ama ay aad iyo aad meelaha ay weerarka ugu qaadayso inaan fahno deegaanada inta badan nuclearka Iran lama weerarin ama weerarkoodu wuxuu noqday kuwo aad u kooban gaar ahaan deegaanka Natas ayaa ku jiray saacadii hore Israa'iil waa laga difaacay weerarkaasi sababtoo ah Israa'iil tactic khiyaanaha oo weyn bay isticmaashay khiyaanadan waxay ahayd inay markii oreysay suuqa waxaanu ku jirnay qof walba ku sirnaa inay Israa'iil ay burburi doonto xarumaha nuclearka ee Iran sidii waxaana Iran ay maanta sameynaysaa wax hadir cusub ma operation opera wad garanaysan dadkeena taariikhiyahanada dadka cilmiga leh way garanayaan istimaadka lagu qaaday gobolka loo yaqaanay Iraq oo markaa Iran ka awood badneed oo lagu burburiyay xarumaha nuclearka waaweynaa lagu burburiyay waa dhaqan ay Israa'iil ay weligeed ilaahay taqaanay in ay xarumaha ay burburiso waxaad kale ogtihiin in 20 sanadood ugu dambeeyay Iran ay burburinaysay ama si joogto ay u beegsanaysay xarumihii nuclearka iyo xarumihii warshadaha hubka iyo kuwii kiimikooyinka iyo aagga saadadka ee hubka iyo saanada ee wadanka Syria kaliya iyaga maaha wadamo badanna watay weerartay saanadooda oo kuwii ugu dambeeyay yihiin Yaman iyo Lebanon iyo kuwaas oo dhan marka inta badan Iran isma lahayn mayna ogaan waana dhigi karaa waa faashil dhinaca sirdoonka oo soo gaaray in ay ogaa weydo in qorshaha Israa'iil uu kala yahay A iyo B aan isku mid ahayn laakiin A iyo B aan isku mid ahayn inay ogaato ayay ahayd A iyo B gu mar plan B ma ya waa A iyo B waa laba wajiga koobaad in lagu eego doono saraakiisha oo lagu beegsan doono laakiin maxay Israa'iil ka faa'iideen waa sheeko kale laakiin qorshaha inta badan kuma jirin in raggaas oo kale la weerar karo laakiin Iran waxay moodaysaa hadii Israa'iil ay kulli cid weerarayso ama cid dilayso inay ayatullah oo kale dilayso ayatullah amnigiisa waa la sugay laakiin se raggan kale oo dhan lama sugin amnigooda qaarkoodna shaqada ku jiraan qaarkoodna guryahooda ay joogeen runtiina waxay Iran u sugaysaa in xarumaha la weeraro hadir aan hadlano deegaanada ay weerartay waxaa kamid ah deegaanada Isfahan shirkadii meesha ku taallay warshadii Isfahan waxaa kamid ah warshadii loo yaqaanay Natas waxaa kamid ah warshadii kale loo yaqaanay iyaduna Tabriz iyo dhowr warshadood oo kale ayaa ku yaal laakiin wararku waxay sheegayaan in badankoodu ay badbaadeen isla markaana kantaalaha difaaca ee Iran ay waxtar weyn geysteen qaar kamid ah diyaaradaha Israa'iil la soo riday isla markaana la burburiyay taas waxa sii dheer Israa'iil inay isticmaashay wax loo yaqaano psychology warfare ayay bilowday oo ah in ay dagaal dhinaca nafsiga bilowdo waxay soo bandhigtay wiil uu dhalay ninkii Israa'iil u shaqeey jiray oo meesha Soomaalidu ka keento shiicada Israa'iil oo shaqeysa ninkii sultaankii Iran ee dalka Ingiriiska ay hay'adda MI6 Ingiriisku ay talada ku fadhiisay markii xilka laga qaaday ama laga afgambiyay Maxamed Musaddiq ninkii la jeclaa ninkii loo jiray Suudaan Bahlafi wiil uu dhalay oo Reesa Bahlafi la yiraahdo Chikli ayaa waxa uu soo sawiray isagoo gabi ahaanba la sawiran saraakiil ka tirsan saraakiisha aan Israa'iil taasoo muujinaysa in dad iyaga ka tirsan ay gudaha ka shaqeynayeen horeyna waateen u ogeen in diyaaradaha droniska lagu diyaariyay ama hay'adda Mossad ay ku diyaarisay gudaha Iran wadanka Iran ay gabi ahaanba ay ku diyaarisay dhinaca kale waxa kale oo soconaya in aad fahantaan oo qodob kale ah Iran hadeerto weerarka ugu badan ee ay qaadi doonto wuxuu noqon doonaa saacad kasta hadeer laakiin si istiraatiijiyad ballaaran ayay u baahan tahay weerarka nooc ay qaadi doonto daba Iran ee saacadan waa noocay waa in aynu fahanaa weerarka hadeerto Iran ay qaadi doonto waxa weeye weerar ka horgeyn waxa loo yaqaano tit for tat ama contra waxa loo yaqaan attacks
oo ah in ay ku yarayso diyaaradahan xajmiga faraha badan ee Israa'iil ee soo socda drone fara badan ee hawada ku sii deyso laakiin weerar bartilmaameed leh aniga fahankayga waxa weeye Iran ma qaadaso sababtiisa u qaaday baa idin sheegaya Iran waxa uga muhiimsan hadirta weerar bartilmaameed leh inay qaato inay horta marka hore difaaca adkayso cirkana ay ku maaweeliso oo ay kaga hortagto diyaaradaha Israa'iil inay waxyeelada ay yarayso oo inta yaree karto ay yarayso waayo hadeerto qarxyo aad u waaweyn ayaa laga maqlayaa markaasi goobo ay ka mid ka yihiin markaasi magaalada Tehran qarxyo ayaa laga maqlayaa hadeerto hal second ka hor ayaan arkaa qoraalada iyo warbixinaha soo dhacaya degdega oo muujinaya in qarxyo laga maqlayo magaalada Tehran ee xarunta waddanka Iran taas waxay muujinaysaa in weerar celis u maqlayo laakiinse wararka ayaa sheegaya in sidoo kale magaalada Tehran hadeerto lagu soo riday diyaarad ay Israa'iil leedahay hadda aynu hadlano waaye waxa ka hadlaya waa hadeerto aynu wararka aynu si toos ugu jirno oo saacadii dambe ee 11kii habeenimo ku dhow 10kii wax la jira xilliga Tehran weeyaan waxaana sheegay in la maqlayo iyadoo markii uu soo dhacay ayaa la yiri wax loo eg in uu yahay ama gantaal la soo riday ama diyaarad la soo riday iyadoo oo dadka soo riday ay hoos kale yihiin muuqaalka soo ma aragtid ilaahay baa weyn soo ridnay baa la maqlayaa iyagoo markaasi ku hadlaya afka loo yaqaan Persian ama afka Farsiga ee waddankaasi laga hadlo sida daraadeed dhinaca kale Israa'iil waxa ay sheegtay in gantaalo hor leh ay u soo gudbeen Iran marka waxay isticmaalaysaa istiraatiijiyad loo yaqaano isku dhaf oo ah inay diyaaradaha drones hawadeeda ku qasafto si ay u challenge gareeyaan diyaaradaha Israa'iil ee qaaliga ah ee casriga ah ee Mareykanku sameeyay teknolojiyada ugu dambaysa dhinacana ay doomartayso oo isku dayday inay dhinaca kale u doomartayso marka waxa la dhihi karaa ilaa hadda qaabka ay Iran wax u wato waa arrin aad iyo aad u heer sareysa xagga saraakiisha aan soo noqono dadkuna ay aad iyo aad qaarkood ugu mashquulsan yihiin saraakiisha dhimatay hadda waa 11 marka saynisyada lagu daro militarigu waa 5 inta la xaqiijiyay ragga sarsare kaba soo qaadada doonaan 10 ha gaadhin saraakiisha militariga wax weyn u noqon mayso Iran arrinta laakiin Iran waxa weyn u noqonayso aad rabto aan rabo inaad si fahan leh sida dadka carabtu ay wax u falanqeynayaan inaynu soo gaadhno Soomaali ahaan waxa weeye Iran jawaabteed bixinayso muhiimadu waa taas Iran hatta hadii madaxweynaheeda bas sheekeen hadda dil dilo laakiinse ay Israa'iil gaarsiiso xanuun oo ay bartilmaameedada Israa'iil duqayso xarumaha nuclearka Israa'iil duqayso xarumaha korontada duqayso garoonka diyaaradaha duqayso meelaha trayarkeeda ama ay u yaalaan diyaaradaheeda iyo agabkeeda ay duqayso saraakiisheeda qaar kamid ay duqayso xarunta Mossad ay duqayso khadka tareenada ay duqayso goobaha airportada waaweyn ay duqayso badda iyo dekedaha ay duqayso burbur aad u xooggan hanta xublaa ay dhacdo laba wadan oo kala gaaro ma dhacays arrintu kala gaaro bay noqonaysaa kaabayaasheeda marka in ay indefinite inay si markaasi aan kala joogsi lahayn inay u duqayso baa muhiim ah من عدة دونتنا أي سمس سوكل إيران وحكوا خصمتها إنها درتو مراكب تغيير درونيس كا لو يقانو مركا كوا سوسايد درونيس نوعا لو يقانو مراكب يرو أو ديري إلى بطح تا إني هاوقل كسميسو وأمبش وحلو يقانو يصب أتاج ودقما وإني ديارسا هدي لكنسي أي كلا قلاشو وإسرائيل ay soo gabagabaysay ololaheeda maadaama cadaad sadarta Israa'iil ay durwo la kulmayso wadamada reer galbeedku ma rabaan dagaalka foolka fool inuu dhaco sababtoo dagaalka foolka fool wadamada reer galbeedku ay ku lug yeelan doonaan wadamada reer galbeedkana khasaare weyn ayaa ka soo gaari doona sababtoo ah mid samcadeed iyo mid duulaan ayay noqonaysaa oo toosa marka waxay Iran u baahan tahay hadda maaha inay ku mashquulsho imisa sarkaal baa dhintay waa inay ku mashquulsho maxaa wadanka waa lagu soo duulay maxaad dareensiin kartaan haddii taas dhici weydo marka saraakiishu wax weyn noqon maayaan waxay noqon doontaa wadanka oo dhan taliska oo dhan in la bedelo ninkaas la soo sawiraya shaaha Iran ayaana markaas la keeni doona kaas ayaana maqli doontaan wararka wala dhinaca dirasada shana qiimaha tir warar kala soo dhacay oo hadarto Israa'iil duqeyn ba ku socota leeyahay ee aan u soo noqdo dabashana qiimaha la dhigtay